أنا مدحوينه محمد عبد الله محمد فرماجو marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacawday xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waxaana aad ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkayga iyo dalkayga iyo waajibkay saaran ka shaqeyn doono inaan kula shaqeyn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aad u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag dadka Soomaaliyeedna ay u ooman yihiin dawlad waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dawlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu oo balbalaariyay anigoo la tashan doona guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha anigoo uga mahad celinaya magacaabista uu magacaabay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkaan u gudan lahayn annagoo isku dayi doona inaan sida cadaalad ugu haboon tahay waajibka ku gudano waxa kale aan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay amaanadaasna aan sugi doono ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu nagu garab galo waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dawlad ka turjumaysa shacabka oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradeyda waxaan ka soo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay'ado kala duwan local international